madaxweynaha maamulka Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxaa si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxaa soo dhaweyntiisa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Warbixinta warkan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Sharmaarke Xuseen Maxamed. wafdigan uu hogaaminayay madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa waxaa madaarka diyaaradaha aadan cadday magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay xubno ka mid ah labada gole ee xukuumadda iyo baarlamaanka Soomaaliya iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan Puntland oo horey ugu sugnaa magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. soo dhaweynta Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo mas'uuliyiintii la socotay kadib waxay warbaahinta kula hadleen qaybta nasashada madaarka diyaaradaha aadan cadday ee magaalada Muqdisho, balse waxa ugu horeen warfidiyeen kala hadlay wasiirka duulista hawada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Cali Axmed Jaamac Jangeli waxa uu daboolka ka qaaday socdaalka wafuudan. Bismillahir Rahmanir Rahim. waxa sharaf weyn noo in soo dhaweyno anoo ku hadlaya magaca wasiirada xildhibaanada iyo siyaasiyiinta iyo odayaasha kale ka soo qayb galay soo dhaweyntan madaxweynaha Puntland Cabdiwali Gaas waxaan madaxweynuhu u yimi madasha Britain ka bilaami doonta Muqdisho dabcan sidii madaxweynihii markii dhawatay yimi Axmed madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed waxa la dhameystirayaa oo la gabagabeynayaa hawshii cuslayd ee run ahaantii madashu ay ku guuleysatay fadhiyadeedii badnaa in la gabagabeeyo. waxaanan ilaahay ka baryaynaa dhammaan in hawshaasi ay si fiican madaxweynahana waxaan leenahay soo dhawow caasimadaadii magaaladaadii labaad waa magaalo ra'iisul wasaare ka hanjirayo waa magaaladiisii. intaasi kadib madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo dhankiisa warfidiyeen kala hadlay ayaa sheegay in ay tahay ujeedada socdaalkooda ka qaybgalka shirka madaxweynayaasha maamulada iyo sidoo kale madaxda dowladda federaalka Soomaaliya oo Muqdisho ka furmaya kaasoo loogu arinsan doono hanaanka geedi socodka iyo doorashooyinka sanadda 2016. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Maadsan yahay wasiir Jangeli iyo saaxiibada kale halkaan nagu soo dhaweeyay aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa runtii mar walbaaba marxabeynta iyo soo dhaweynta aan kala kulano waa mahadsan yahay 100%. sida wasiirku sheegay waxaa u nimid shirkii madatashiga madaxda qaranka oo lagaga hadlayo barnaamijkii geedi socodka doorashooyinka 2016 oo hadda loo gudbi doono waqtigii ahaa fulinta implementation phase-kii aan u gudbi doono dabcan waqtigii kala guurka xilligii dowladdu cusub ay imaan lahayd baarlamaanka cusub la soo dhisi lahaa waqti yar oo 3 bilood ka yar ayaa ka haray. marka waxay runtii u baahan tahay juhdi gaar ah iyo dadaal dheeraad ah oo barnaamijka lagu fuliyo. marka dabcan madaxdu waxay isugu imaanayaan 3 beri oo tashi ah sidii barnaamijkaas loo dardargelin lahaa, si loo sii ambaqaadi lahaa, sida doorasho dhabihi dalkan uga dhici lahayd insha Allah isbedel khayr qabana uga hirgeli lahaa bisha August 2016. barnaamijkaas u nimid 3 beri ayaan joogaynaa insha Allah dabeedna dhulkii aan ka nimid Puntland ayaan ku laaban doonaa mar labaadna soo dhaweynta ka mahadnaqaynaa. waa mahadsantiin. sidoo kale wafuudan soo gaartay Muqdisho waxaa qayb ka ahaa wafdi ballaaran oo hogaaminayay madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaan Axmed Madoowe. dhankiisa warfidiyeenka ayuu madaarka diyaaradaha kula hadlay. بسم الله الرحمن الرحيم وبنا نستعين على أمور الدين والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. aad baan uga mahadcelinayaa wasiirada iyo xildhibaanada federaalka iyo odayaasha kale lagu soo dhaweeyay garoonka Muqdisho. inkastoo aanu ahayn dad gurigoodii ka yimid oo gurigiisii gurigaagii ka soo tag oo gurigaagii imo haddana waan uga mahadcelinayaa soo dhaweynta iyo xushmada iyo qadarinta ay nagu soo dhaweeyeen. madaxdan ka socotay maamulada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ayaa imaashooda salka ku hayo ka qaybgalka shirka madasha qaran ee doorashooyinka sanadda 2016. Sharmaarke Xuseen, warbaahinta SBC, Muqdisho.